Maanta waxaan idila wadaagayaa arrin hore u dhacday. Nin maskiin ah oo u dhashay waddanka Ghana. Ninkan ayaa mar walba jeclaa oo ku hami jiray inuu tago xajka, balse lacag uu ku tago muu haysan. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala hamigiisii u hirgeliyay, waxa uuna tagay xajkii. Haddaba ninkan muxuu sameeyay? Haddaba muuqaalkan oo dhammaystiran ku soo dhawow. Haddii aad ku cusub tahay Facebook page-keenan Wardi Cali Official, nagu soo biir oo follow dheh. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channel-keena Maxamed Wardi Official, nagu soo biir oo subscribe ta saar. Muuqaalkana like ta saar, asxaabtaadana u sii share garee. Mahadsanid. Ninkan waxa lagu magacaabaa Xasan Cabdullah. Waa ninkan odayga ah ee idiin muuqda. Wuxuu u dhashay waddanka Ghana. Wuxuu ahaa nin maskiin ah oo aan waxba haysan, oo ku nool meel ka baxsan magaalada oo aad u kulul. Xasan ayaa mar walba ku riyoon jiray oo ku hami jiray inuu maalin uun tago xajka, balse muu haysan lacag uu ku tago xajka. Maalin maalmaha ka mid ah, kamarada daroonka ah ee duusha ee wax lagu duubo ayaa gurigiisa ku soo ag dhacday. Waxaana kamarada daroonka lahaa TV Turkiga laga leeyahay. Waxaana waqtiga kamarada baadigoob ugu jiray raggii saxafiyiinta ahaa ee kamaradan wax ku duubayay. Waxayna arkeen ninkan odayga ah oo kamarada daroonka ah gacantiisa ku haya. Waxayna u sheegeen in iyagu kamarada leeyihiin. Odaygii oo qoslaya oo la kaftamaya raggii saxafiyiinta ahaa waxa uu ku yidhi, ma helayaa tanoo weyn oo xajka ii qaada. Raggii saxafiyiinta ahaa ayaa odaygan aad uga naxay. Raggii saxafiyiinta ahaa ee odaygan hadalkan uu ku yidhi mid ka mid ah ayaa soo daabacay sheekada iyaga iyo Xasan dhexmartay. Kadibna dowladda Turkiga ayaa ogaatay. Dowladda Turkiga ayaa odaygan u ballan qaaday inay geynayso xajka. Ugu dambeynna waxay geysay xajka oo odaygan hamigiisa waa loo rumeeyay. Haddaba Xasan oo aad u faraxsan ayaa yidhi, waxaan u mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay inaan xajka tago. Haddaba ninka maskiinka ah waad aragtaan, Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala hamigiisii wuu rumeeyay oo si yar oo fudud ayuu ugu rumeeyay. Waxaana sabab u noqotay kamarada daroonka ah ee gurigiisa ku soo ag dhacday. Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala markuu wax kula doonayo isla markiiba uu ku siinayaa. Mar walba waa inaad Ilaahay tala saarataa, aad mar walba baridaa. Asxaabteeda qaaliga muuqaalkan sii share gareeya oo like ta saara. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh. Waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.